السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي واني سلامي بعد السلام إن أنت حنوصل الله عافية أنت عافمات قبطن الله وسياديو ما أنت حنك هادلينا شعب ama yicibta u taqaanaan yicibta waxay kamid tahay kheyraadka dalkeena ka baxa badanaa waxa lagu daaweeyaa cuduro qaas ah anaga waa isku cunnaan oo cuduro aan daaweynina isku cunna iska isticmaalaa laakiin hada muhiim jiddan wuxuu u yahay dhibaatooyinka ka haysta dhanka sariirta ama galmada xagga raaxadan ka hadleena in dadka aan markasta dareenkooda aan joogin dareenkada xawli oo san ahayn oo xooga kuliida dhanka dareenka ayaan ka hadleena maanta yicibta waxa lagu daaweynayaa dadka qaar ahaan cunto ahaan u cunaan qaarna baashal ahaan u cunaan laakiin maanta waxaan idin haynaa yicibta oo lagu daaweeyo dhanka sariirta ama raaxada inta xanuunsan Allah ka shaafiyo inta maanta xoogaa liidan haleenahay isticmaala in qofka dullo uu yahay xitaa dareenkiisa uu soo kicinay yicib haduu isticmaalo ma sha Allah tijaabo badan aan ku sameeyay asxaab aan nahay aan ku sameeyay ma sha Allah haduu ku fiicnaadeen yicibta isticmaaleen sidoo kale waxa isticmaal ka tahay yicibta markaas xiliga subax ayaa isticmaalaysa iyo habeenkii oo kala isticmaalaysa ina isticmaasho yicibta waa shiidan kartaa ama waa cuni kartaa eedo caadiga ah sidoo kale waxa ku darsanaysaa malab saafi ah ku darsanaysaa yicib ama jicibta saa u taqaaniin marka shiido malab saafi ah ayaa ku darsanaysaa daa malab haasina caano kulul ayaa ku darsanaysaa ku qasanaysaa kadibna waa caawisa insha Allah barakallahu fiikum maanta yicibta sayaan wax hadalnay sidoo kale waxa rajeynaa inaan faa'iidooyinka idin soo gudbiyo oo qoseeya dhanka raka sidoo kale dumarka qoseeya faa'iidooyin badan haddii aad baahan tihiin waxyaalo kale aan arti inaan ka soo hadlo insha Allah commentiga noo reeba sidoo kale waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka dalkeena ama qudaarteena dalka ka baxda ee leedahay qaar badan isticmaala hadan aan aqoonin faa'iidooyinka ay noo leeyihiin insha Allah waxaan waa soo gudbinayaa insha Allah asxaabteyda subscribe like comment iyo laga tagin waa walaashiina dooraysa jiya ma santiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh